marka ayaa la iga aamusay kadib dadkii ayaa keenay dad wada dhaawac ah ayaa la dhigay sariirihii marka ayaan iska seexday daqiiqado kadib ayaan ka war helay aamusnaan isbitaalkii oo dhan ah waxaan ogaaday in uu isbitaalkii sidii hore ka bedelmay dadkan dhaawaca ah inay dhib keeneen ilaa waa guuldarre titoorkii meesha joogayba wuu dhoontay isagoo ka baqaya in ay dadka dhaawaca ahi ku soo dhexdhoontaan kuwa ay colaadii kala dhaxayso oo titoorkii ka horeeyay ayaa sidaa oo kale loo dilay oo uu mid dhaawaca ahi daaweynayay ayaa mindi calooshii ka dhexgeliyey mandhaciirtana soo daadiyey meeshu waxay ahayd meel qabiilaysi ah taasoo keentay in xitaa isbitaallada layskala dhexbaxo aniga labada qabiil oo isagaashan ayaan ku dhacdhacay markii aan isbitaalkii keligii ku haray anoo dhaawac ah oo madaxa i jaban yahay ayaan waxaan go'aan ku gaaray inaan iskaga tago meesha balse gabadh yar oo mucjiso ah oo kalkaalisooyin ka mid ah aan ilaa ay weli xasuusanahay naxariisteedii anaaba is-iri taasi inay dunidan tusaale u noqoto ayaa loo abuuray ayaa iga diiday gabadhaasi waxay tustay in ninka go'aan kasta uu qaato ay dumarku jabin karaan hadday isdejiyaan markaan istaagay oo aan iska fujiyey xanibkii madaxa iga dheganaa oo faashadii ku celinayay igana ilaalinaya dhaqdhaqaaqa badan ayay intii si daacada u soo booday oo meeshii dhiigga ka socday si naxariis leh gacanta ugu qabatay ayay si hoose igu tiri fadhiiso naftaada haligin waxaad halis ugu jirtaa inaad istaagga ka faniintide waxaan u qaatay inay imaaweelinayso ay diyaar u tahay inay ila sugto raggii markii hore titoorkii meesha ka shaqaynayay watay waxaan u maleeyaa in titoorkii la watay ama la dilay gabadhii waxaan isku dayay in aan ku gacan sayro balse way iga diiday oo waxay ii keentay cabitaan caano ka samaysan oo baraf leh xilliguna wuu kululaa oo waa subaxii dambe ku dhowaad 6 saac anigu sidii aan u fakarayay iyo sida ay xaaladdu tahay anigu waxa igu duuban canjalad ah gabadhan waa gabar doonaysa inay ragga qabiilkeeda ahi ku dilaan gabadhuna waa gabar hay-ad waddan kale laga leeyahay soo tababartay dalka dibaddiisa lagu soo tababaray oo Soomaaliduba xiise dheer u qabta fikirkaasi iguma jiro oo nin badow baan ahaa oo aan waxba ogeyn la soco qaybta 6